halkan joogna waxa weeyaan Somaliland Institute of Technology telescope-keedii waxaanu duubnay oo telescope-kan ku tijaabinay cadceedda dayaxa ay Mars iyo Pluto intabana waxaan ka keenay war aan hore loo keenin tusaale ahaan iminka Somaliland Institute of Technology telescope-keedu sawiradan uu ka keenayo dayaxa iyo xidigaha iyo qorraxdu waa mid ka fiican oo ka clearsan kuwa hore isticmaalayeen wadamada caalamka isticmaalaan Mars oo kale waxa la isku hayaa biyo ma leedahay mise ma laha iyadoo biyo leh oo lagu dabaalay ayaanu haynaa وليدنا صوب bandhigi doona dayaxa waxa la isku hayaa biyo ma leeyahay ma laha kalimadkiisu waa sidee markaan ku tijaabinay software-keegan iyo technology-keegan aan ku tijaabinay waxaan ku soo aragnay oo la yaab idinku noqon doonta inuu bad leeyahay oo kalluun ku jiro waana soo sawirnay waana soo bandhigaynaa Pluto wuxuu leeyahay dhul qiyaastii leeg United States of America leeg oo hog ah oo arladooda ka hooseysa ugu yaraan 20 kilomitir gudaha u hooseysa ay billahi tallahi adar ku arki lahaa dhangad baan kala daalina oo arladooda ka hooseysa ugu yaraan 20 kilomitir gudaha u hooseysa ay billahi tallahi adar ku arki lahaa dhangad baan kala daalina